jaamacadda ayuu ka qalin jabiyay waliba darajo aad u sareysa balse waxa uu dhibaato kala kulmay sidii uu shaqo u heli lahaa dadaal dheer kadib maalin ayuu journaalka ka aqriyay shaqo banaan loona baahan yahay qof ka shaqeeya beerta xayawaanka codsi dirasho iyo isdiyaarin kadib waxa loogu yeeray waraysi ama interview waxaana loo sheegay sida tan beertan waxa hore u joogi jiray daanyeerka noociisa gorilaha loo yaqaano balse waa uu naga dhintay dalxiisayaashan aad ayay u jeclaayeen waxaan rabnaa inaad booskiisa noo gasho la yaab ayay la noqotay balse mushaharka ayaa ahaa mid soo jiidasho leh waanu aqbalay maalintii koowaad dhar u eeg maqaarka gorilaha ayaa loo geliyay waanu u boodbooday dadkii maalinkii xigtay isagoo boodboodaya ayuu sikadiisa ugu galay qaybtii libaaxyada nasiib xumase aw libaaxi ayaa la kulmay inta uu is ilaaway ayuu ku qayliyay oo yiri wari caawiyay balse libaaxi ayaa intuu soo orday ku yiri warheedhe naga aamus wa saaxiibka Cali ee aad isku fasalka ahaydeen wadanka shaqo la'aan ayaa ka jirta xitaa yaxaaska halkaas biyaha ku jira waa saaxiibkeena Xasan oo shaqaysanaya hana fashilin haddaba maxay kula tahay sheekadan qosolka badan leh balse ka turjumaysa waaqiciga wadanka hadda ka jira iyo shaqo la'aanta waxaan ka soo xiganay Ustaad Ismaaciil waxaan idin soo jeedin anoo ah Yunis Qays